laba xabadooda aniga ku dhacday halka wiilka kale Mawliidna asigana 3 xabad ku dhacday labadii xabadood midna way iga dhaxbaxday midna xaggan sare dambe ee iga sartay labadii September bishii 9aad sanadkan aan ku guda jirno ee 2022 xilli fiid ah oo habeenimo jimcana sii baxayso sabdina soo galayso ayaa lagu dhaawacay magaalada caasimadda Muqdisho waliba asigoo fadhiya goob maqaaxi ah la caawinayna saaxiibadiis Cabduqaadir Ali Maxamuud ayaan ka hadlayaa balse Soomaalidu waxay u taqaanaa Bilaal Bulshaawi ama madaxweynaha TikTok muddo bil iyo wax la jira ayaa lagu baxnaaninayay isbitaalka Digfeer oo ku yaala magaalada tan caasimadda Muqdisho Cabduqaadir laba xabadood ayaa lagu dhuftay oo mid ay ka sartay madaxa gadaashiis halka mid kalena ay ka gashay garabkan dana ay ka baxday dhuunta halkan oo ah hoyga uu ka degan yahay magaalada caasimadda Muqdisho ayaan ku soo booqanay maxaa Bilaal Bulshaawi iska bedelay xaaladiisa caafimaad tan iyo markii isbitaalka laga soo bixiyay Bilaal hay سودو ولا شيء خير الحمد لله إله مهدي ما شاء الله سيدور وادانتا إله مهدي فريسة Bilaal Bulshaawi balse Soomaalida inteeda kale ay u yaqaanaan madaxweynaha TikTok oo ah baray ku wada kulmaan dadyo kala duwan ayaa ugu horeen weydiinay sababta keentay in la doonayo in la dilo wallahi ma garanayo mana aqaano waxaan qiyaasayna inay tahay sababihii umada loo leeyin jiray kaliya inay tahay oo sabab kale oo hadda anaga noo muuqato in aysan jirin horena uma qabin wax digniin la yiraahdo horena uma qabin wax dagaal la yiraahdo waxaan ogaay ma jirto kaliya waxaan dareemayaa inay jirto wax la iska soo jeclaystay in aniga dunidan laga qariyo laakiin saacada qiyaamo xilligeedii ima taagnayn oo Ilaahay xaqiisa kama qornayn alxamdulillah maantana nolola iyo qorneedna waa noolahay haday dhimasho iyo qornaan lahaydna si qurux badan oo nadaaman u dhiman lahaa marka taas Ilaahay sida uu ugu talagalay ayay wax walba u dhaceen sida cadawga ugu talagalana waxba uma dhicin qudhiisa sida uu sheegay Bilaal xaaladan qabsatay waxay ku noqotay mid filan waa ah hadaba markii ay xabaduhu ku dhaceen xaalad sidee ah buu galay hay nooga warama mar kale madaxweynaha TikTok waan su'aashan hor dhignay waligay aniga ka security ahaan aan u fiirinayo waligay albaab kama jiisan jirin habeenkaas Ilaaha qadaray oo qadarta qorneed albaabkan ka soo jeestay dhan kale u jeestay alxamdulillah xabadu halkan iga soo gashay dhinacaan halkaanina ka baxday waxay martay meel u dhaxayso xididka halbowlaha iyo laf dhabarta oo midna haday ku dhacdo midna naafa aan ku noqon lahaa midna geeri ay noqon lahayd laakiin Ilaahay ma dhihin labadooda ay dhaxmartay horta aniga Bilaal ahaan dhimasha liiga kala tagay oo dadku inta badan waxay ku hadaaqayeen Bilaal uu dhintay wiilkan kala noole hala qaado halka wiilka uu ku dhawaaqay Bilaal qaada wiilka markii sida lagu qaaday aniga gabara isoo dul istaagtay oo ashhaadka ii qabatay ashhaadkii la ii qabtay oo aan qabsaday waxaan dareemayay inaan awood aan ka helay ashhaadkii markaan awood aan ka helay waan soo fariistay dad fara badan dushayda hayhaabayo warwareegay maanan arkin ilaa gabadha mooyee ibadbaadiyana maan lahayn waxaan ku faraxsanaa xataa inaan meesha aan ku qurbaxo aan ku dhinto sababtoo ah waa markii labaad oo Ilaahay haleeshiinaa anoo xaalad halis ah ku nool xaalad halis ah ku jiro ashhaadka isu xasuusinaa waa ku faraxsanaa marka inaan ashhaadka aan ku dhinto waxa uu Bilaal Bulshaawi ahaa samafale sidoo kale gurmadyo kala duwan gaarsiin jiray dadka danta yar ee ay abaaruhu ku saameeyeen Muqdisho ilaa gobolada dalka hase yeeshee maanta Bilaal iyo saaxiibkii garab ayay ka rabaan Soomaalida inteeda kale si xaaladooda caafimaad ay ugu soo dabiibaan dalka dibadiisa kal hore bartiisa ayuu ku baahiyay Bilaal inuu u baahan yahay garab si xaaladiisa caafimaad inta dhiman oo dalka dibadiisa ugu soo dabiibo anigu ka Bilaal ahaan hantiile maahi famil qoys hantiilayaalna kama soo jeedi shalay aniga waxaan u kacay Soomaaliyeedana u shaqeynayay kama shaqeysan ayagiina maanta ka dhaawacmay waana tan sababtay inay ii duceeyaan isla midiya waxaan kaga codsaday inay igu garab istaagaan safarkayga bixitaanka
dalka dibadiisa caafimaadkan u aadi doona aniga iyo Mawliidba insha Allah waan rajeynayaa in lagu garab istaagi doono waana hadda in badanna wayna soo gaarta ballanqaadyo ah waan rajeynaynaa insha Allah taa inaan ku guuleysano. Faadumo Cabduqaadir Xasan, raadiyaha TV-ga Dalsan, magaalada Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.